wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo hawlo shaqo u jooga deegaanada bariga gobolka Awdal ayaa maanta kormeer ku soo sameeyay deegaano hoos yimaada degmada Baki ee ka tirsan gobolka Awdal kaasi oo ujeedada socdaalkiisu daarnaa sidii ugu kuurgali lahaa xaaladaha waqti xaadirkani ka taagan deegaanadii ay sida weyn u saameysay Dufaanto Sagar ee 19 bishii May ee sanadii la soo dhaafay ku dhufatay qaar ka mid ah gobolada Soomaaliland wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo weheliyaan agaasimo waaxid ka socday wasaaraddaasi iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha gobolkani Awdal ayaa mid u dul istaagay dhammaanba beerihii ay waxyeeleysay Dufaanto Sagar kormeer kadib wasiirka ayaa waxa uu warbixin ku saabsan xaaladda beeraleyda deegaanadaasi ka dhageystay duqa degmada Baki inta kadib wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo ka warbixiyay socdaalkiisani iyo ujeedada uu daaran yahay ayaa waxa uu ku tilmaamay runtii safarkaygu wuxuu daaraa oo koorgalida xaaladda deegaankan oo runtii deegaan beerleyda oo wariba aad uga horeeya dhinaca wax soo saarka xagga geedgaabta la yiraahdo ama khudaarta loo yaqaano sida darteed baan muxuu ahaayay ayaan u soo baxnay inaanu nimaadno degmada Xeego iyo degmada Baki oo aan iyadna maanta joognay oo aan runtii si aad u qurux badan labada degmada la nagu soo dhaweeyay annaguna aan wixii aan u sidnayna aan gaarsiinay iyo wixii talaha iyadoo dadweynaha reer Soomaaliland oo dhan aan ugu baaqayo maadaama aynu ku jirno bishii saddexaad maanta dhowr iyo 20 waa waqti roobaadkii oo waqtiga roobku waa bilaabmaya waqtigeedii waa gaaray marka waxaan ku boorinayaa dhammaan reer Soomaaliland waa inay u diyaar garoobaan dhinaca wax soo saarka beeraha si aanu wax soo saarkeenu kor ugu kaco oo aanu gacanta isku qabsanno marka aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland ee ku hawlan dhinaca wax soo saarka oo runtii aad ogtihiin sidii madaxweynuhu khudbadiisa maanta dowladda ugu soo daray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi in khudaarta dhinaca khudaarta 70% aynu sanadkii ugu horeeyay isku filaash ka gaarnay waxa iyadna aan jecelnahay in sidaas oo kale sanadka soo socda iyo sanadada soo socdaba aan iyadna isku filaash ka gaarnay dhinaca cunnada oo aan iyadna gaarno 70% si uu wadankan halkii uu taagna hore uga talaabsado dadkuna ay u gaaraan isku filaasho dhinaca raashinka iyo khudaartaba waayo awl khudaarta dibadda inooga imaneysay raashinkiina dibadda inooga imanaya marka de wadan labada wax walba dibadda uga yimaadaan horumar gaari maayo marka shacbigu ay isku tashado aynu dalkeena wax kala soo baxno waa Cabsalaan Saaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama